maalinta 39aad casumaad. nabiyaalkii waxay saadaaliyeen inuu eebbe soo diraayo masiixa uuna dembiyaalka ka badbaadinayo xiriirkoodana u soo celin doono xagga eebbahooda. nolosha sayid ciise ayaa aad noogu caddaynaysa inuu runtii yahay badbaadihii u ballanqaaday inuu u soo dirayo adduunka. ishaaciya wuxuu saadaaliyey inay gabarh bikra ah uuraysanayso wiilna dhali doonto wayna noqotay. ilaah awooddiisa iyo kelmaddiisa ruuxa daahirka ayaa mar yar oo bikra ah ku haraysmay wayna uurowday. masiixuna sidaas ayuu ku dhashay. siday qoralladu u sheegeen dhalashadiisa waxay mucjiso sumad ah u noqotay eebbe inuu wiilkan yahay masiixa oo eebbahayna ugu magacaabay wiilkayga haddana u dhow eebba xaggiisa. dadku markay sayid ciise arkeen waxay kaloo arkeen eebba awooddiisa iyo maamulkiisa isagoo haddana u ballanqaaday ummaddiisa rumaysa inuu boqortooyadiisa daa'inka kula waari doono. sayid ciise wuxuu noloshiisa u hibeeyey silaca ummadda oo dhan darteed. ka dibna wuu soo sara kacay. runtii taas waxay caddaysay inuu ka guulaystay geerida. duubanaha ciise masiix wuxuu yidhi, waxaan leeyahay awood noloshayda aan ku hibeeyo kulana soo sara kaco. nolosha ciise masiix waxay ku rumowday sidii nabiyaalkii hore u saadaaliyeen. waxay caddaysay inay run tahay ereyga eebbe oo waxba lagama beddelin. siday nabiyaalku hore u caddeeyeen, rabbiyow ereygaagu waa dhab oo waa daa'im. sayid ciise wuxuu yidhi, cirka iyo dhulka way dhammaan doonaan laakiin ereygaygu ma dhammaan doono. eebbe markuu dhulka uumay aadan iyo xaawa si ay ula nooladaan uguna renreeyaan eebbahooda. laakiin iyagu way caasiyeen amarka eebbahooda. ceebtaas darteed ayaa eebbahooda xiriirkoodii ku kala go'ay. qoraalladu waxay caddeeyeen inuu bini'aadanka oo dhan dambaabaan oo abaalkoodu yahay dhimasho. dembiilayaashu xiriir lama laha eebbaha quduuska ah. laakiinse sida eebbe ugu keenay wan kuna beddelay wiilkii nebi ibraahim, innagana eebba duubanaha ciise masiix wuxuu inoogu soo diray inuu dembigeenna loo hibeeyo uuna dhinto beddelkeenni. noloshiisa, dhimashadiisa iyo sarakaciddiisa waxay dib u soo celinaysaa xiriirkii u dhexeeyey eebbe iyo ummaddii rumaysa. sidaas awgeed kuwa ciise masiix xertiisa noqda waxay ka badbaadayaan ciqaabta naarta daa'inka ah eebbahoodana kula waarayaan jannada. sayid ciise xertiisa wuxuu ku yidhi, daraadday qurmaha oo dhan ugu naadiya farriinta wanaagsan inuu eebbe u dembi dhaafayo kuwa dembigooda ka toobadkeena oo aniga i rumeeyo. sayid ciise masiix wuxuu kaloo xertiisa u ballanqaaday inuu soo diraayo ruuxa quduuska ah si uu u tuso jidka toosan uuna siiyo awood ay ugu dhaqmaan jidka eebbe. markay naagtii dembiilayda ahayd noqotay xertii ciise masiix wuxuu ku yidhi, dembigaaga waa la cafiyey waana lagaa badbaadiye waayo anigaad igu kalsoon tahay. weliba sayid ciise wuxuu kaloo yidhi, haddii ay dadku eebbe aad u jeclaadaan waxay caddaynaysaa in dembigooda la cafinaayo. markuu dembiiluhu iskutallaabta saarnaa oona awooddarrida haysay, sayid ciise wuxuu ku yidhi, maanta jannada ayaad ila joogi doontaa. kuwa oggolaada inay xertiisa noqdaan waxay xidhiirkooda ku bilaabayaan sida ducada tan: eebbaha naxariista badnaayow, adigaa quduus ah, wax walba adigaa ka sarreeya. aniga waan ka xumahay, amarkaagaan diiday, waana kugu dambaabay. waad ku mahadsan tahay inaad sayid ciise ii soo dirto kuna dhinto iskutallaabta daraaddey, ka dibna uu dib u soo sara kaco. waxaan ku mahadinayaa silica iyo ciqaabta uu u maray aniga dembiyadayda daraaddood. waxaan doonayaa inaan noqdo sayid ciise xertiisa, isaguna noqdo badbaadiyahayga iyo rabbigaygaba. waxaan ku mahadinayaa sidaad ii cafisay oo boqortooyadaada daa'inka ah iigu dartay. waxaan kaa rabaa inaad ruuxa quduuska ii hibayso oo aad jidka xirnimadaada ii tusto. ruuxa quduuska ah ha i siiyo awood uu qalbigayga kugu jeclaado oo aan ku noolaado nololaad raalli ka tahay oo ummadaha oo dhan ku ammaanaan meel kasta dunida ay joogaan. aamiin. sayid ciise xertiis wuxuu u sheegay, laxdaydu codkaygay maqashaa, waan aqaannaa, iyaguna waa i soo raacaan. sayid ciise masiix
xertiisa way kulmaan maalin kastana way la hadlaan waxayna bartaan qoraallada eebbaha waxay ku dhaqmaan jidka sayid ciise waxayna u naadiyaan farriinta wanaagsan kuwa kale sayid ciise masiix wuxuu xertiisa ku hagaa kuna dhiirigeliyaa jidka toosan kuna hibeeyaa awoodda ruuxa quduuska ah waxay maankooda ku hayaan murtida duubanaha sayid ciise masiix xertiisuna wuxuu u ballanqaaday markuu daruuraha sare ugu kacay isagoo leh eebbahay wuxuu i siiyey awood buuxdo taa jannada iyo dhulkaba lagu maamulo xasuusnaada mar kasta waan idinla joogaa ilaa ay adduunyadu ka dhammaanayso qorshaha ilaah weligii isma beddelo sidee ayuu ilaah rabaa inaan ku galo qorshihiisa halkee ayuu marayaa xiriirka aan la leeyahay ciise masiix